Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan ahay Maxamed Xirsi. Kusoo dhawaada Higgs Technology. Maanta waxaan qaadanaynaa hadduu alla idmo sida loo hagaajiyo menu-ga maqaaxiyaha. Sida hore idinkugu sheegaba maanta waxaan qaadanaynaa sida loo suubiyo menu-ga maqaaxiyaha. Sambalkan ayaan idiin soo sameeyey, isla kan sida loo sameeyo ayaan idin barayaa hadduu alla idmo. Marka koowaad aan furo daaqad iyo cabir gooni ah aan samaysto. Sidaa ogtihiinba menu-ga noocyo kala duwan ayaa loo samayn karaa, laakiin waxaa samaynayaa A4 isku laamayso oo B5 amase A5 noqonayso oo weliba horizontal ah oo vertical ahayn. Marka koowaad aan dhaho new, kadibna halkan imaado. Maanta waxaa samaynayaa menu, kadib halkan waxaa ka dhigtaa jiiftox, kadibna okay dheh. Halkaas markaa maraysid waxaa rabaa tan inaan kala qaybiyo warqadan oo aan ka dhigo warqad isku soo laamaysa, dhinacana wax kaga sameeyo, dhinaca kalena wax kaga sameeyo. Si aad sidaas u samaysid waxaa samaynaysaa, waxaa soo qaadanaysaa shape nooc walba ha noqdo, dhexda wax yar aad samaynaysaa oo afar gees ah. Kadib waxaa leedahay direct selection, qaadanaysa selection tool caadi ah soo qaadanaysaa. Alignment ayaa leedahay, kadibna waxaa leedahay horizontal alignment center, kadibna haddana waxaa sii dooranaysaa hadduu alla idmo vertical alignment. Halkaas markuu yaalo wuxuu leeyahay sidaa ujeedaan dhibicda dhexda ah, dhibicda centerka ah ayaa waxay tahay warqadan kala barkeeda. Si aad u kala barto control R dheh si kugu soo baxo xariiqmaha, kadibna ama ruleska, kadibna ruleska soo jiid dhexda keen meesha dhibicda ku aadi. Ruleska intaa kasoo jiiday halkan ayaa kasoo jiiday, kadib shape-kii hore iska delete. intaas markaa samaysid sambalka hore idinkugu diyaariyey aan soo qabano oo aan isla fiirino. Sambalka intuu ku jiraa hal mar ayaa waxaa soo qaadayaa shape-ka group ayaa isku leeyahay, waa isla soo qaadayaa, kadib intaas soo dhigayaa sambalkan. Midkan koowaad ayaa ku hormaraynaa. waxaa samaynaynaa waxaa waaye shape-kaas sidaas u qaloocan ayaa samaynaynaa. Okay aan dhaho soo qaato paint tool-ka, kadib ka bilaabo meel ku qiyaasan. Halkan ayaa qiyaas ahaan laga bilaabayaa, kadib halkan kale ayaa imaanayaa. Kilig markaa kasoo sameeyey, kadib kilig ayaa leedahay hoos ayaa u riixaysaa, waxay leedahay dhinacaas u jiidaysaa. sidaas marka u jeedid, sidaas u jeedid waxaa intaa imaanaysa marka calaamad isku bedesho angle ayaa kilig siinaysaa, kadib geeskaas ayaa tegayaa angle-ka, kadib waxaa ku dhufanayaa angle-kaas kale ayaa tegaya haddana waa isku soo xiray. marka isku soo xirmi rabto calaamaddas eberta ayaa samaysmayso. Okay sidaas markaa isku soo xirtid selection tool-ka tag, kilig dheh, color-ka ka bedel. midkan stroke waa baabi'inaysaa, kan kalena color-ka waxaa ay ayaa leedahay, kadibna kan ayaa soo daaranaya. saas markaa usoo daaratid waxaa samaynaysaa ku dhufo kilig dheh, kadibna waxaa samaysaa control C, kadibna control F dheh, control qabo, shift qabo, bracket-ka fur, kadib shift qabo, hoos soo deji. hal mar marka saas hoos ugu soo dejisid eyedrop taabo, color-ka orange-ga soo dooro. haddaad doonto intaa kasoo dooran kartaa, haddaad doontidna halkan ayaa aadi kartaa, kadibna eyedrop-ka sidaa usoo dooran kartaa. halkaas markaan marayo waxaa ii dhiman inaan soo geliyo loogada iyo magaca maqaaxida. waxaa tegayaa loogada meeshuu taalo, open ayaa leeyahay. meesha loogada ku taal aad taqaanid, aniga inta igu jirtaa soo qaadayaa open, kadib waxaa leedahay image track, kadib extract, kadibna right click, kadib angle. loogada waxay ku xiran tahay hadba nooca loogada ay tahay. haddii looga flexible tahay waa soo qaadan kartaa, saas waa dhistoobi kartaa, laakiin haddii kale caadi aa usoo qaadanaysaa. kadib waxaa samaysaa soo qaad loogadaada, menu-ga dhex keen, sidee, kadib wax yar yaree, kadibna color-ka qaad, eyedrop-ka dooro daartid. haddaad doontidna color-ka white aa ka dhigaysaa, intaa ka dooni kartaa, kadibna color-kaas ayaa bedelaysaa. kadib waxaad dooranaysaa text, kadib halkan ayaa imaanaysaa, kadib waxaa qoraysaa Higgs Restaurant,
kadib highlight ayaa wada saarayaa, kadibna waa weyneynayaa farta intii aniga ka gaar. kadib qaybta hore color ayaa ka dhigaya oo ah eyedropka dooranaya, orange-ga dooranaya. qaybta dambena waxaa ka dhigaya white. waxaa sameynaya halkan ayaa aadaya, colorkaas ayaa dooranaya. xariiqas yar oo meesha ku jiro waxaa kasoo qaadan kartaa halkan oo loo rounded rectangle tool, kadibna halkan ayaa soo dhigaysaa. kadib colorka ayaa tegaysaa, orange ayaa dooranaysaa. markaa maraysid inta imaaw menu ayaa halkan ku qoran, menugaas ugu qoran meesha ungroup leh, text ayaa dooranaysaa menu. markaas u qortid waa weyneynaysaa farta. muhiimada farta inaad weynaysid weye, saas u weynaysid oo farta saas kugu weynaato. halkan dhexda dhig, i keyboard ka taabo ama eyedrop inta ka dooro, kadibna ku dhufo farta halkaas taalo si ay u ekaato. haddii wax yar kaa yaraatay waa weynaysan kartaa, wax dhibaana malahan. sidaas ayaa u weyneynayaa, kadib dhexdaas ayaa dhigaya. kadib waxaa ii yaala calaamad yar oo orange ah oo rectangle ah. rectangle-kaas soo qaadayaa, halkan ayaa soo dhigayaa, waa weyneynayaa cabaar. halkaas markaa marayo eyedropka taabanaya, colorka orange-ga ayaa dooranaya. wax yar isku tootoosi, isku aadi labadooda, hoos aga soo dhig. kadib text tag, waxaa qortaa erey ku qoran oo ah for your choice. highlight wada saar, eyedropka soo dooro, farta le ku dooro, wax yar farta weyney. haddaad doonto far adeeg choice-kaaga ayaa dooranaysaa. muhiimada waxaa waa inay cabirka isla ekaadaan oo keliya meeshan. anigana eyedropka waxaa u isticmaalayaa colorka oo keliya. kadib inta soo imo haddana text soo qaado, just qor just contact as. farta wax yar weyney, orange ka dhig, haddana soo koobiyey. markaad soo koobiyeynaysa alt iyo clicktaas, markaad soo koobiyeynaysa alt iyo click markaad soo qabatid, wax yar hoos soo deji, isla siin, highlight garee, lambarka ku qor aad rabtid inaa lagala soo xiriiro. kadibna maqaaxida lambarkeeda ka hadlayaa. access markaa u qortid fartaa bedelayaa oo eyedrop aad dooranaya, colorkaas ayaa dooranaya. intaas markaa marsiinayo, kan ayaa sii koobiyeynayaa, haddana lambarka labaad ka dhigaya oo keliya. dhexda kusoo aadi, kanna wax yar dhexda kusoo aadi. kadib waxaan sameynayaa loogadii balaagta ayaa u tegayaa, dhexda ayaa kala jaraya. waxaan rabaa wax yar inay isla qurxoonaadaan, kadibna cut ayaa dhexda kala siinaya. kadib right click ayaa korsiinaya ungroup. qaybtan hore ayaa qaadanayaa, waxaa geynayaa meeshan, geeska ayaa keenayaa. marka geeska ayaa isu keenayaa, kadibna eyedrop taabanaya, fartana colorkana dooranaya buluuga. kadibna waa yareynayaa ilaa ay boqolkiiba ka gaaro 20. marka geedo control shift bracket fur, back to the center ayaa leeyahay. haddaad doono waa sii weyneyn karaa. muhiimada waxaa waaye in cabirka kuu la egyahay. kadib geeska keen, sidaasaa sameynaya. dhinaca kale markaan rabo inaan sameeyo, waxaa soo qaadanaya rectangle, geeska ayaa kasoo bilaabaya, gees kale ayaa geynaya. saas markaa rectangle u sameeyo, waxaa doonanayaa inta ka doonayaa calaamad ellipse tool dhaho. dhexdan ayaa imaanayaa, waxaa ku sameynayaa ellipse tool oo sidaa ayaa ku sameynayaa. colorka wax yar ka bedel, white iga dhig, kadib wax yar kor u qaad. saas markaa kor ugu qaado, shift anoo haya wax ku dhufanaya shape-ka oo buluuga ah. kadibna waxaa dooranayaa pathfinder, kadibna waxaa kasii dooranayaa divide. pathfinder-ka dooso inta kugu jirin, inta ayaa ka doonaysaa ayaa leedahay.
window kadibna pathfinder ayaa soo dooranaysaa waa kana amase shift control F9 ayaa leedahay kadib waxaa sii dooranayaa divide-kan kadib kan ayaa kusoo noqonayaa right click ayaa leeyahay ungroup ayaa leeyahay kadib geeskaas ayaa iska daleedaysaa dhanka kalena geeskan ayaa ka daleedaysaa saas markaad samaysid labadan hoose saddex qayb weeyaan qaybtan hoose qaybtan dhexe iyo qaybtaas kore kadib labadan qayb ayaa sidaas highlight soo saaraysaa waxaad dooranaysaa unite pathfinderka ayaa unite kasii dooranaysaa white markuu noqdo eyedrop dheh kalarka kore sii qaybta korena kili ku sii eyedrop dheh kalarka white-ka isii markaan sameeyo haddana qaybtan ayaa soo qaadayaa oo loogada iyo magaca ah anoo alt haayo calaamad markay laba falaar noqoto alt markii la qabto laba falaar ay noqotaa ayaa soo jiidaya halkan ayaa keenayaa in yar waan yaraynayaa marka hoos ayay jirtaa control shift bracket xiran ayaa kor ugu soo qaadaysaa farta loogadan kalarkeeda bedelaysaa kana ka dhigaysa eyedrop baa isticmaalayaa qaybtan sidoo kale restaurantiga eyedrop isticmaal waxaa ka dhigtaa qaybtan orange ka dhigayaa qaybtan soo horeysana waxaa ka dhigayaa oo higsiga ah kalarka buluuga ah ayaa dooranaya kadib waa fasaxaya markaa maraysid waxaan rabaa inaan dhexda wada geeyo dhexda ayaa geenayaa in yarna waa weyneynayaa waxaa kor u qaadayaa markaa maraayo menu waa isoo harmar hadda inta waxaa waaye faahfaahinta maqaaxida intana menu waxaa yaroo rabaa qaybta hoose inaan sameeyo qaybta hoose waxaa waaye waxaad dooranaysaa rectangle tool geeskan ayaa kasoo bilaabaysaa geeskan ayaa geenaysaa kalarkaas ay rabo ayuu ii ahaanayaa iyo kadibna tegastaa soo qaadaya inta imaanaya text f ayaa qoraya oo facebook aan ka wado iyo higsi restaurant marka intaas qoro fartan madow weeyaan waana yar tahay waa weyneynayaa whitena waa ka dhigayaa kadib efta goonida ah in yar efta goonida ayaa imaanayaa kadibna inta meesha tegasta laga bedel ayaa tegayaa type-ku ah qoraya oo ah far iconada sameysa iconka f wuxuu isku bedelay facebook qaaxida facebookyada oo kale ayay lamid tahay qaybtan hoose ayadana dhinaca kale qaybtiisan kale orange ayaa ka dhigayaa click ayaa leeyahay sidaas ayaa u jeedayaa anoo alt haayo isku meel ayay imaanayaan kadibna eyedrop baa taabanaya kalarka orange aa soo dooranayaa waa sameeyaa in yar waxaad moodaa inay kala qaloocan yihiin sidaas markaa u simo waxaan sameynayaa menuga dhexda iisoo dhiman marka menugaasay ku sameynaya marka meeshan waxaa igu qoran haddaan soo dhaweeyo inta waxaa meeshan ku qoran waa quraac magaca saasay ugu qoran yihiin kadib inta kale waa kala goobiyeynaysaa laakiin aan soo dhaweeyo magaca koowaad maxaa waaye cuntooyin koowaad qor rabo quraac farta aan bedelo farta markaa bedelaya eyedrop aa taabanaya iyada laftirkeeda quraacdaa ku dhufanaa farta way isbedeshay laakiin way yar tahay waa weyneynaya marka sidaas markaa sameeyo listiga ayaa rabaa inaan sameeyo listiga waa sameyn karaa sidana u fiirinayaa maxaa ku qoran magaca quraacda kaba soo qaad waa anjelo an farta kabitaalka bedel dirba kabitaalka iyo qormata anjelo ka dhaho dhibic dhibic ayaa siinaya pointidaas ayaa sameynaya waa pointiga oo keyboardka kadibna waxaa ku qorayaa lacagtii oo ah calaamad doolarkaa soo qaadaya $2 ka dhigaya soo qaad hadda $10 iyo qoran $10 qor kadib saana kili uu siinaya eyedrop baa dooranaya farta saara inaa kalar isku mid noqdaan haddaan raban waxaa sameynaya eyedrop kalarka waxaa orange aan dooran karaa laakiin sidaas ayaa sameynaya kadib waa kala jiidaya waa weyneynaya halkaas ayaa soo dhigaya sidaas marka usoo dhigo anjelo
okay canjeelada maxaa la socda marka canjeelo keligeed miyaa hoostaas waxaa ku qorayaa qoraal ah canjeelada texteeda canjeelo iyo maraq waxaa kale oo la socda xoogaa hilib ah oo dhaylo ah waa weyneyneysaa marka farta maadaama zaid u yar tahay kadib intaas markaa sameeyo canjeelada sida weyney wax yar hoos usoo dhig capital white ka dhig kalarka canjeeladii kore ku noqo farta capital ka dhig xabada haday kalarkaas ku noqo boldi saas markay kuu noqoto wax yar weynee iyada waxaan rabaa inaan midan hoose yaryareeyo in yar farta yaryareey tan hoosena ka yaraataa la rabaa kadibna isku jar saas markaa u sameeyo canjeeladan kore waxay ka kooban tahay hoos ku qoran waa macnaha informationka tan kore kadib adoo hayso shifti labadan klik sii kadib soo koobiyey saas markaa usoo koobiyeysid macnaha alt adoo haysa soo jiidiye macnaha control b saddex qurac ahaaya kusoo qaad klik sii kana ku dhufo asna markaas waxaa sameysaa halkaa qabo yaree kadib kor u qaad kana hoos soo dhig wax yar okay marka waxaa sameynayaa klik ayaa quraca ku siinaya canjeerada ku dhufana tanaa kusoo dhufana kana kusoo dhufana kana kusoo dhufana kana kusoo dhufana intaas markaa kusoo dhufid altaa qabana waa koobiyeyna quraacdan markaa quraac mahena waxaa ku xigo qado marka quraacda laba ka dhiga kadaleeda saddexaad qadadana sidoo kale laba qado okay aan kor u qaado maadaama casho ay dhiman tahay kor u qaadayaa kadib alta ayaa qabanaysaa keligaa la haysid aad hoos u dejinaysaa okay kan waxaa ka dhigaysaa marka qado kanna maxay noqonayaa casho magaca markaasaa ka bedelaysaa bariis canjeelo maxaa kaloo la keenaa jabati quraac loo cunaayo kale intoo kale markay imaato qado maxaa la cunaa bariis capital ka dhig ereyga ugu horeeyo bariis maxaa kaloo la cunaa baasto waa la cunaa ayadana qadada cashada imaaw fuul amase waxaa dhahdaa cambuulo soomaalida maahano soomaalida maxay cunaan cambuulaa ka dhigaya marka maxay kaloo cunaan cashada bariisna way cunaan maahano bariis kadib sidaasaa isku ekeysiinaysaa saas ayaa lagu sameeyaa menu haddaa hadda fiirsid kan iyo kan waxba isma dhaamaan qaybtan oo marka hore idin soo bandhigay iyo qaybtan hadda sameeyay keliya waxaa ka dhiman meeshaan ay ku qoran tahay heegsi ayadana oo soo koobiyeynaysa alta adoo haysid ayaa soo jiidaysa intaa keenaysa same haddii aad ka heshay cashirkan oo uu ku caawiyey fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid siina share garaysid